Soomaalidu socotay ha jirtay socodkani wuxuu ku imi jiray wax fara badan ma jirin gaadiid la raaca dadku fardamay wada haysan xitaa hadduu fardo yahay ninku socota weeye mar haddii aanu meeshii dhaqso u gaari karayn oo ka dhaxayo baabuurtan iyo magaalooyinkan iyo waxani may jirin dadku dee waxay wada ahaayeen talteel hawdkaasun baa la wada wadnaa marka qofku marka uu u soclayo oo yani waxba laga yaabaa inuu safar yahay safarkiisaas waa maxay laga yaabaa inuu baayac mushtar doonayo inuu soo iibsado ama xoolaba watuu iib geynayo ama uu guur u sahan tagayo ama uu reer u sahan tagayo ama uu xoolo u sahan tagayo waxyaabaha noocaas laga yaabaaba inay ahaayeen guurti inay garwadeen inay wax aan macna lahayn socod uma geli jirin socodkaa qofku maadaama uu soconayo ma qaadan karo sahay fara badan oo uu qaato cuslayo socodka ku cuslayo ilaa maalmo bilo ayuu dhaxaya wuxuu ka baxayaa deegaankii uu reerkiisa iyo tolkii la noolaa buu ka baxayaa deegaano kaluu maraya sharciyaa ka yaalay ilaa maaha qof waliba marbay ku qabsan doontaa oo noloshan caadiga ah bay ka mid ahayd in safar la galo oo la socdo markaa waa in xeerar laga dhigtaa qaadici dariiqii la odhan jiray kuwii u geli jiray iyo ma jirin shuruuc baa taalay ah ninka maraya meesha iyo ninka marta degan iyo ninkan meesha marayaa marka uu marti u noqdo ninkii marinka deganaa saddexdaa sharci baa yaalay ninkan meesha maraya ee socotada ah in naftiisu iyo maalkiisuba ay nabad galaan oo ay nabadgeliyaan hadba deegaanka uu marayaabaa sharci u ahaa in la martageliyo oo la sooriyeeyona sharci bay ummadda u ahayd ilaa isba berita ay qabsan doontaa kan meesha deganiya ninka loo martida noqon doonaana waxaa sharci ahayd inaan lagu daahin shuruucda noocaasa baa u ahaa xeerarka noocaasa baa waxay u ahaayeen saldhig